وأنا السلام صاحي بيال أديكو هالكن تاجن أي يوصل علينا موبايل كي موبايل كان كدوبه يا وري موبايل وحبه ما تدوب شيء لكن أنا هالكن تاجن أي يوصل علينا الموبايل كي كلوه ده موبايل كان waxaan joogaa magaalo yar oo la yiraahdo ama tuulo la yiraahdo Ottersheim oo hoostagta magaalada Linz wadanka Austria waxa ka socda tartankaas oo ah tartanka laashashka wadamo badan ayaa markaa halkan ka soo qayb galay oo tartanka ka qayb qaadanaya wadankeeni kama mid aha ognahay sababta wadankeeni uga mid ahayn waayo waxyaabo badan ayaa ka horeysay wadankeeni uu ka mid noqdo ama ciyaaraha noocaas oo ka qayb qaato nabad ayaa ka horeysa arrimaha bulshada laga shaqeeyo ayaa ka horeysa dad hay'adaha oo soo baxa ayaa ka horeysa iyo wadanka iyo horumarkiisa laga shaqeeyo ognahay qodobkan muuqaalkan idin kula wadaagay kama ahayn sababtan muuqaalkan idin kula wadaagay waxa weeyaan meesha ay ku sameynayaan tartanka ama ay isku ceyrsanayaan waa wabiga yar weeye wabiga yar iska caadi normal ah waxay u soo dhacay waxa weeyaan marka oo aan sababta ugu talagalay uu ahaa wadankan aan deganahay ama dadkan marti galiyay anaga ee aan la noolahay bad ma lahan waxay leeyihiin wabiga dekada laakiin ma laha iyo xeebad toona waxyaabaha qaar aan aragno waxa ka mid ah inay wabigan si cajiib uga faa'iideystaan wabiga yarka oo dhowr magaalo wadanka ka mid ah dhexmara si cajiib ay uga faa'iideystaan tartana ay ku sameeyaan dhaqaale weyn baa ka soo gala doomo ay u sameysteen dalxiisayaashu ay u raacaan dhaqaale ay ka sameeyaan wadamada Yurub ayaa waxa wabigan uu dhexmaraa dabadeedna halkan waxa isaga goosha dooman Yurubta kale ka yimaada isagana dhaqaale ay ka sameeyaan hareerihiisa magaalooyinka waaweyn ee uu maro hoteelo iyo makhaayado waaweyn ayaa ka furan dhaqaale ay halkaan ka sameeyaan meelo qurux badan oo sidii ay ugu talagaleen beachka oo kale ay ka sameysteen halkaan dhaqaale ay ka sameeyaan dabaqyo dhaadheer iyo biriichi ay ka dul sameysteen korkiisa muuqaal qurux badan ayuu u sameeyay oo dadka soo jiitay halkaan dhaqaale ay ka sameeyaan waxa ugu soo dhacay waxa weeyaan marka nimanka kan wabigan yarka ah sida uga faa'iideystay haddii ay bad lahaan lahaayeen sidee bay noqon lahaayeen sida caadiga ah hadeer waxay ka mid yihiin 20 waddan dunida ugu dhaqaalaha badan G20 ay ka mid yihiin laakiin haddii ay bad lahaan lahaayeen maxay noqon lahaayeen aan barbar dhigna xaggii wadankeena inagu waxaanu leenahay badda ugu dheer Afrika Soomaa Indian Ocean ila Red Sea wadankeena saa maapka hadii loo eego waxa ku wareegsan waa bad kama faa'iideysana Soomaa kama faa'iideysana kalluun bayna haysanaa kuwani ma haystaan Japan baa looga soo dhoofiyaa laakiin kama faa'iideysana kalluunkeena waxa laga yaabaa gobollada qaar Soomaaliya in kalluunka la isku caayo waayo weynaan garanayn wixii intifaaca uu leeyahay iyo qiimaha uu ku fadhiyo dekadaynu haysanaa dhaqaale abuur weyn ay ka sameyn karno laakiin ma aragno waxa webigan ayagu haystaan waynu haysanaa laakiin ma aragno sanad walba marka xagaaga la marayo marka roobku bil ama laba bilood naga soo daaho reer miyigeena waxa u dhintaan ama u dhamaadaan xoolahooduna u dhamaadaan biyo la'aan bay u dhamaadaan markaasina waxaanu nahnaa beesha caalamka hayna soo caawiso beesha caalamkeena caawinaysa waayo waa nimankan webigaasay leeyihiin beesha caalamkeena caawinaysa waa webiga kuwaas la inoo soo qaadamaya marka inta aanu ku mashquulsanahay dagaalada iyo dhibaatooyinka waxa ka wanaagsanaan lahayd in Ilaahay uu inagu jiheeyo kule dhigii waasan in Ilaahay inagu jiheeyo inaan ku mashquulno wax la soo saarka dhulkeena qof walibana shaqada uu bulshada u hayo ku mashquulo oo aysan ku mashquulin shaqo uusan bulshada u haynin kii makhaayad ka shaqeynaya uu makhaayadiisa si cajiib rasmi ah uga shaqeeyo kii dukaan haysta dukaankiisa oo si wanaagsan uga shaqeeyo kii dhakhtar ah uu dhakhtarnimadiisa ku ekaado oo halkiisa ka shaqeeyo kii politik inoo qaabilsan politikiisa uu daayo laakiin inagoo dhan inuu meel ku xoono ayaa waxay ka mid tahay dhibaatooyinka keenaysa in kheyraadkii aan la arkin kii ka shaqeyn lahaa badda haddii uu ku mashquulsan yahay siyaasad kii ka shaqeyn lahaa wax soo saarka dhulka uu ku mashquulsan yahay siyaasad kii ka shaqeyn lahaa wax soo saarka beeraha uu ku mashquulsan yahay siyaasad kii ka shaqeyn lahaa wax soo saarka webiyada uu ku mashquulsan yahay siyaasad dadkii oo dhan ay xagga isugu tageen cid ka shaqeynaysa waxyaabo kale soo haray ma jirto biyaas marba dhinac ay mar way gurayaan mar Ethiopia dhexda u fadhiisanaysa webigii marba sibay noqonayaan marka sababtan muuqaalkan ugu talagalay waxay ahayd bal ugu yaraa inaan bal aragtiyar aan idin kula wadaago inta aan ogeyn ama aan war ku haynin dadka reer galbeedku sida ay u nool yihiin wala in la arkaan sida ay u nool yihiin ya dadku dunidu ma kala caqli badan laakiin way kala aqoon badan yihiin bulsho walba tayadeedu waxay ku xidhan tahay inta cilmigeedu leeyahay jaamacadaha wadankeena ka furan dhamaan waxa lagu wada bartaa siyaasadda
arrimaha bulshada technology IT laakiin waxyaabaha aan wadankeena lagu baran ee aan ka badjirin waxa weeye xirfadaha gacanta oo kale ma la yaqaanba مسؤول يا هذه حماة ما حاجة تسنى قانو خصبت يا هذه اللي جبت منها حاجة تسنى قانو يا وحلا مثلها يسنتمي بيلا ديران إن شاء الله مقالكم وحنا كسميه موبيل وأمريكا كذا مقال موبيل خدوه أنا قلت لك لي يوتيوب كذا سوق ليه وأنا كده إنه عادي فالعيدين تعاد قسم إن شاء الله وكل ما سنتين ده وشدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.